gabadheeda gacanta ku soo dhigeen alxamdulilah ilaah baa mahad iska leh ilaahay mahadiisa waa alxamdulilah waan u mahad celinayaa dhalinyarada iyo gurmatay ee gabadheeda shalay iyadoo soonaad lagu dilay wadada alxamdulilah shukran ilaahay u naxariista gabadheeda ciidamada ee gabadheeda ninka dilay gacanta ku soo dhigeen waa u mahad celinaya ilaahay khayr allah siiyo insha allah gabadheeda suuqaan iskula imaanay suuqay gudaha u gashay anigana tacsiin maamo xaafadaan u gudbo isla suuqa agteeda ah sii adeega erhooy anaa ku soo maraya waa israaceena markaan soo noqdana gabadheeda horteeda baxday kadibna waa lay soo wacay anaa soo wacay daan soo wacay taleefonka buuq baan arkay markaan arkay waa naxay mar labaadaan ku soo celiyey gabadhaa iga qabata kheyr allah siiyo ciddaas iyagana waa u mahad celinayaa gabadheeda meel xunay ka qaadeen alxamdulilah markaan soo wacay waxay i tiri gabadhan way dhiig baxaysaa waana dhaawac halis ah haddaad dadkeeda tahay haddaad dadkeeda ahaynba meeshaas isbitaal gurmadaan keennay waa baabuuraan soo qaata waa soo cararay isuma dheer maaba jirine haddaa isbitaalka waxaa layidhi wax ma ka qaban karno isbitaal riyaana loo gudbiyo ceelasha ku yaalo alxamdulilah meeshay ku dhimatay gabadheeda anoo arkinay dhimatay alxamdulilah meydkeeda waa arkay alxamdulilah dadkii ii qaadeen isbitaalka ii geeyeen xoogaa isbitaalka lagu qashqashaaday anigaa u soo waxay waxaa ihi gabadheeda dadkii ii soo wadeen isbitaalka ii keeneen yaa layga qashqashaadin hana laysii daa wiilkan wiil xaafadda lagu fiicanyahoo noqday iyagana waa u mahad celinayaa ciidanka gabadheyda iyo dhalinyarada ii gurmatay ajri xasanaad allah siiyo alxamdulilah